madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn iskugu diyaarinaya sidii Yahuudda iyo Soomaaliya ay xidhiidh u samaysan lahaayeen. Muxuu yahay xidhiidhka Israa'iil iyo Soomaaliya xilligan dhex mari kara? dhinaca kale warbixintan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi intii uu ku sugnaa dalka Mareykanka uu saraakiil Mareykan kala hadlay in Soomaaliland ay doonayso inay xidhiidh la samaysato dawladda Yahuudda balse dhambaalka ay u direen Tel Aviv aysan ilaa iyo hadda wax jawaab ka helin. halkani waa Manrac TV. haddaad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe garayso lana wadaagta saaxiibadaada. aan ku bilowne sida lagu daabacay wargeyska The Times of Israel, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya inuu baarlamaanka Soomaaliya kala hadlo arrin ku saabsan qadiyadda Israa'iil, gaar ahaan xidhiidhka dhex mari kara labada dawladood ee Soomaaliya iyo Israa'iil. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si qarsoodi ah la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu sanadii 2016 ayaa lagu yiri warbixintan. dib u doorashada Xasan Sheekh ayaa lagu sheegay in dawladda Israa'iil ay si weyn u soo dhaweysay ayna ku faraxday, iyadoo warbixintani ay sheegtay in arrintaasi ay ka dhigan in markii uu horeysay ay xidhiidh samaystaan Soomaaliya iyo Israa'iil. Israa'iil ayaa si weyn u danaynaysa xidhiidh dhex mari kara iyaga iyo Soomaalida, maadaama Soomaalidu ay ka mid tahay jaamacadda Carabta. Israa'iilna sanadihii u dambeeyay ay xidhiidho kala duwan la samaysanaysay dalalka Carbeed. wargeyska ayaa sheegay in bishii May ee sanadkan ay safaaradda Israa'iil ee Faransiiska abaabushay shir ay ka soo qayb galeen diblomaasiyiin, suxufiyiin, ganacsato, kuwaas oo diiradda lagu saaray iskaashiga Israa'iil iyo wadamada Afrika. dhinaca kale warbixintan ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay uga faa'iideysanaysa Soomaaliya laba arrimood, maadaama ay ka wada tirsan tahay jaamacadda Carabta iyo midowga Afrika ayna cod ku leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay booqashadii uu ku tagay Imaaraadka Carabta in ay qayb ka ahayd qorshe dawladda Israa'iil ay ku doonaysay isu soo dhawaanshaha Soomaaliya iyo Israa'iil, balse waxaan laga warramin in baarlamaanka Soomaaliya ay aqbali doonaan xidhiidh la sameeyo dawladda Israa'iil, iyadoo xogaha laga helay sirdoonka Israa'iil ay sheegayaan inay walaac weyn ka qabaan in baarlamaanka Soomaaliya ay ka hor yimaadaan arjiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. balse Israa'iil waxay sheegtay in ay rajo weyn ka qabto xidhiidhka dhex mari kara iyaga iyo Soomaaliya. afhayeenka Villa Soomaaliya oo ka hadlay xidhiidhka dhex mari kara Soomaaliya iyo Israa'iil ayaa horay u sheegay in arrintaasi aysan hadda jirin, balse in Soomaaliya iyo Israa'iil xidhiidh la samayso ay ku xidhan tahay siday u wajahaan bulshada Soomaaliyeed iyo baarlamaanka, isagoo sheegay in arrintaasi uusan ka hor dhacin. wargeyska ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo booqasho ku tagay dalka Mareykanka uu saraakiil Mareykan kala hadlay in Soomaaliland ay danaynayso inay xidhiidh la yeelato Israa'iil, balse aanay Tel Aviv wax jawaab ka siinin arrintaasi. wargeyska ayaa intaasi ku daray in bishii May ee sanadkan ay safaaradda Israa'iil ee Faransiiska abaabushay shir ay ka soo qayb galeen diblomaasiyiin, saxafiyiin iyo ganacsato, kaasoo diiradda lagu saarayay iskaashiga ganacsi ee dhex mari karay Israa'iil iyo wadamada Afrika. shirkaasi waxaa Soomaaliland ku matalahayay wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliland. ayaa lagu yiri warbixintan Israa'iil ayaa doonaysa inay ciyaarto turub ay xidhiidh kula samaynayso Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyadoo hadda awoodda saaraysa in xidhiidhkani uu noqdo mid u bata dhinaca Soomaaliya, balse haddii ay ka quusato xidhiidh ay la yeelato Soomaaliya ay doonayso in Soomaaliland ay u aqoonsato madax bannaan oo xidhiidh weyn oo caalami ay la samaysato. dhinaca kale warbixintan ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay doonayso inay ka faa'iideysato badaha Soomaaliya, maadaama Soomaaliya xilligani ay muhiim u tahay mandaqada Geeska Afrika iyo wadamada caalamkaba. sidoo kale warbixintan waxaa lagu xusay in saraakiil ka yimid dalka Mareykanka oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ay kala hadleen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa cilaaqaadka Soomaaliland iyo Israa'iil, balse ilaa iyo hadda lama sheegin saraakiishani xilliga ay yimaadeen Soomaaliland iyo xilliga ay ka baxeen. Soomaaliland dhinaceedu wax wara kama aysan soo saarin barnaamijkan lagu daabacay wargeyska. isku soo duubo, bulshada Soomaalida ayaa si weyn u hadalhaysa warkan ka soo baxay dhinaca Israa'iil. xidhiidhka ay wada samaysan karaan Israa'iil iyo Soomaaliya, Somaliland iyo Israa'iil, iyo danta Israa'iil ee ay ku wajahaysa Soomaalida ee xilligan, maadaama la og yahay in Soomaalida iyo Israa'iil ay aad u kala fog yihiin. bulshada ayaa dhanka kale isweydiinayso in Israa'iil ay doonayso qorshe ay kaga faa'iideysanayso kala daadsanaanta Soomaalida. adigu sidee kula muuqataa fikirkaada iyo ra'yigaada? nagula wadaag hoos.